maansida ugu dambeysaan dib idinku dhigan soo qaadanaya maansida waxa la xaramkii jacaylka waxay ka sheekeynaysaa laba mawduuc oo kala duwan mid waa dalka midna waa qaybtii dhalinyarada anigii lahaa markii waan sii afeefanay marna dhalinyarada gaar ula hadli doonaa marna si guud baan idinla hadli doonaa maansida maanse jacayla laakiin waa jacayl iyo wadankii wadaniyadii oo isku dhex jirta gabadh baan damcay inaan ammaano ayaa waxaa tirniyo 900 abwaan baa yidhi waad qurux badan tahay dhirtii aqoon badan uma lihidoo inta kugu filanna dadkani kuma fahmayaan aad garanayso togagii iyo meelihii quruxda badnaa inta kugu filan aad garanayso dadku ma wada fahmayaan sidii dadku ku wada fahmi karaan waad gabadh ugu ammaantaa dadka waxaan tirniyo ma la helayaa gabadh meel kastoo Soomaali degto mee wuxuu ku jiraan kismaayo quruxda ugu jirto hargeysa dabeecada ugu jirto dhaqankeedu muqdisho yahay dulqaadkeedu reer garoowe yahay ma jirtaa dareen noocaas ka fikiray waxa tiri xaramkii jacaylka ay xiska daawadiisay xiisaha dareenka ay xogta dooqa keentay awlaadi xamaray xidigtii hargeysay xulal cayntii sool iyo ku xusnayd sanaagay xarumaha kismaayana xaragada ku baratay xarumaha kismaayana xaragada ku baratay xudunteedu tii ay ku xidhnayd garooway awliyo xuldhaladoo mudug lagu xanaanshay kol haddaad xijaabkiiyo xidhan tahay asluubtii kol haddaad xaggaagii ka xarraysid caashaqa kol haddaad xayaaday xubnahayga oo idil aad ku beertay xadantada niyadaydu kuu xidhan qalbigaygu kuu xalan maankaygu kuu xulan kugu xeeran caashaqu